dowladda Itoobiya ayaa dhagaha ka furaysatay amarkii ka soo baxay dowladda Soomaaliya kaasoo ahaa in Addis Ababa ay albaabada u laabto qunsuliyadaha ay ku leedahay magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa ee gudaha Soomaaliya iyadoo hadda la garab dhaafay waqtigii ay u qabatay dowladda Soomaaliya in lagu xiro qunsuliyadaha Itoobiya kaga furan Hargeysa iyo Garowe ayaa waxaad moodaa hadda inaanu shaqaynin go'aankeedii dowladda isla markaana ay weli sii shaqaynayaan xarumihii ay magaalooyinkaasi ku lahayd dowladda Itoobiya si toos ahna ay kaga howlgalayaan shaqaalahoodii labada qunsuliyadood ee Itoobiya ayaa si caadi ah u shaqaynaya haatan iyadoo aysan jirin wax saameyna oo ku yeeshay amarkii ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila muhiim ah oo ku kala sugan magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa qunsulka dowladda Itoobiya u fadhiya magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland ayaa maalmo ka hor iskaga baxay Hargeysa waxaana uu tagay Addis Ababa si uu wada tashiyo ula soo yeesho dowladdiisa laakiin waxaa la tilmaamay in uu dib ugu laabtay magaalada Hargeysa mar kale iyadoo markii hore loo maleeyay inuu fulinayo amarkii ka soo baxay dowladda Soomaaliya hase ahaatee sida la ogaaday waxa uu ku baxay qunsulkaasi amar kaga yimid caasimadda Addis Ababa kadib markii ay u yeedhay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya si ay wada tashiyo ula samayso go'aanka dowladda Soomaaliya waxaa horay gaashaanka ugu daruuray Somaliland iyo Puntland oo iyagu sheegay in go'aanada dowladda federaalku aanay ka shaqayn karin deegaanadooda labada dhinac ayaa mid walba gaarkiisa ugu faanay inuu xiriir saaxiibtinimo iyo mid ganacsiba la leeyahay Itoobiya oo xilligani ay xiisad xoogani kala dhaxayso dowladda dhexe ee Soomaaliya taasoo salka ku haysa damaca guracan ee Itoobiya ay ku raadinayso qayb ka mid ah biyaha dadka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliya ayaa si weyn kaga carootay tallaabooyinka isxigxiga ee Itoobiya ay qaadayso kuwaasoo xadgudub ku ah madax bannaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxaana ugu dambeeyay heshiiskii dhawaan Itoobiya ay la gashay maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland kaasoo hogaamiyihiisa Siciidani oo dana gaar ah uga caraysan madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in Puntland ay u dhaqmayso sida wadan madax bannaan iskoodna ay isku maamulayaan sidoo kale waxaa ka sii horeeyay isafgaradkii sharci darrada ahaa ee Itoobiya ay la saxiixatay horaantii sanadkani Somaliland kaasoo Muuse Biixi uu qayb ka mid ah biyaha badda uu uga bedeshay Addis Ababa intiraaf ay hesho Somaliland si kastaba ha ahaatee go'aankii toddobaadkii hore ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya ayay dowladdu ku sheegtay in haddii uu dhaqan geli waayo ay qaadayso tallaabooyin kale oo dheeraad ah kuwaasoo ay ku ilaalinayso madax bannaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed dowladda Soomaaliya oo hadda u muuqata mid ay caradeedu karaar dhaafayso ayaa laga yaabaa inay qaado tallaabooyin dheeraad ah kuwaasoo filan waa ku noqon doonaha Itoobiya oo hadda dhagaha ka furaysatay inay si sharciyaha u dhaqan geliso amarkii ka soo baxay dowladda Soomaaliya albaabadana u laabto qunsuliyadaha ay ku leedahay Garowe iyo Hargeysa tallaabooyinka kale ee laga maarmaanka ah inay qaado Soomaaliya waxaa ka mid ah inay dacwad u gudbiso golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo ururka midowga Afrika maadaama Itoobiya ay ku soo indha adag tahay inay ka baxdo Soomaaliya oo go'aan ka qaadatay joogitaanka Itoobiyaanka